السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ونكسن داودياشا يدقيستياشا كحرن برتا فيسبوكا يوتيوبكا شيخ حسن إبراهيم عيسى رمضان مبارك يعني دين لنا هاي دقيستيال داوديال مركلي وبرنامج عصوب ومركلي شيخ ووغا جواب الدونو سؤالك صابسن بش بركيسن رمضان qaarkood su'aalahan sheekha ay qusayaan oo dadweynaha ay soo gaarsiiyeen sidoo kalena qaar ka mid ah dadka ayaa iyagu su'aalo badan ka keenay cudur daaro macquul ay tahay iyagu inay u raadinayaan bisha barakaysan ee Ramadaan iyo caqabado ayaga soo wajahay barnaamijkan ayaan kugu soo gudbinayaa guud ahaanba xogahaasi waxaa barnaamijka su'aalaha weydiin doona sheekha anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Sheekh Xasan Ibraahim Ciise soo dhaw bal shacabkaaga Soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibadda daafaha dunida kala jooga hadii aad salaanto bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leeyahay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kastoo aad joogtiin shacabweynaha Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay salaanta islaamka idinku salaamay waxaan idin leeyahay soon wanaagsan Ramadaan mubaarak insha Allah ta'ala ورمضان مبارك على كلنا هاي شيخ حسن سؤال بدنا هالكن كهينا دتكنا سؤاله وذو مدة قارن يسكدويين قارن أي كل دويين سؤال أبوه رئيس هذا عن ويل أي سوقري يقول لي السلام عليكم شيخ حسن يمسلح وان إذن سلامي سلام كتب حولي هاي شيخ عنيقو وحان كتر سنة هاي متكمل الفرقوين كعلماء الصوماليات بش رمضان مركز السوقار مركز فرقة إذا هدي أي دهان ما أنتم الصومين وبرئ أي صومينها oo adduunkii kale ay sooman yihiin oo dadkii Soomaaliyeed kale ay sooman yihiin xitaa bisha annaga aragti kuma soono ee waxaan ku soona maalin hebel marka dambi miya iga soo gaaraya hadii mashaayiqdii cilmiga aan ka qaadanayo aan ku raaco oo ay dhahaan maalin hebel ayaan soomeena maanta soon maaha dadkii Soomaaliyeed ay sooman yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim marka la soomayo waxa lagu soomaa sida nabiga amray sallallahu alayhi wasallam suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi haddii inta la fiiriyo bishii la arkay firqadiina ay dhahdaan ma soomaysid ama ha soomin marka wax lagu raaca ma jirto firqaba dhibka ay leedahay taas oo markana loo weydiiyay firqooyinka iska ilaaliya taasaa markaa ka mid ah marka insha Allah ta'ala waa xirnaanaysa adiga diinteeda ma madax banaanaysaysa marka waxaan aad kugu talinayaa inaad firqo iyo wax la mid ah raacitaankeeda iska dayso waxa la raacayo waa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa la raacayaa in alaala inta diinta sida nabigu u waday oo kale u wada tafraaruq ikhtilaafna aan markaa sameynaynin taan markaan kula taganaa insha Allah sheekh qofkan kale dabcan waa gabar Soomaaliyeed waxay leedahay assalaamu calaykum sheekh Xasan waan ku salaamay salaan kadib waxay leedahay sheekh bal ka waran iyadoo caawa uu muran uu jiro leeyahay bari waa soon iyo soon ma aha ayaa aniga iyo xaajigeyga waxaan waa barigii ku gaarnay annaga waa xaajo gudaneen waxaana markii waaga uu bariyay naloo cadeeyay in Ramadaan ay tahay oo soonkii uu bilowday ma dambi ayaa naga soo gaaraya maalinkaasi oo soonkii sidaas miyuu nooga jabay mise uu noo jira haddii soon la yiraahdo xilli waxa la ogaadaa aan salaad subax la gaarin laakiin bil la raadinaa ilaa salaada subax horta ma jirto waa wax wala ka loo sameeyay ya berison miya masama aha ayaa mashaki markay dhaado waa qof wax arkay inuu san jirin way tahay ma aha way tahay ma la murmo bil hadii la waa ko talka la murmo ma jira hadii shacba la kaamilo marka sida ugu badan waa in maanta soo qadaysaan insha Allah ta'ala sheekh Xasan qofkan wuxuu leeyahay sheekh qurba joog ayaan ahay Nairobi ayaan imaadaa sanadkii hal mar Ramadaanta ayaan ku soomaa kadibna waan laabtaa marka Nairobi aan imaado maadaama xaaskay muddo aan smoogeen waxaan sameeyaa in si caadi ah aanan u soomin oo 60 miskiin aan afuriyo bisha Ramadaanna aan dib ka soo qaleeyo markii aan meeshii ka imid ku laabto marka maadaama aniga dhaqaale Ilaahay i siiyeen oo aan awoodo arintaas Ramadaanka sidaasi ma iiga gudmayaa ama qaladaas oo kaliya ma laga rabaa sababta uu afuray maxay tahay marka hore xaaskiisa say muddo kala maqnaayeen waqti badan inay qaataan maxaas ahaa bis Ramadaanta wuxuu ku hoos gelinayaa aniga musaafir baan ahay iyo arin noocaas oo kale ah xaasku u yeeray maxay loo xaaskii u baahanahay muddo kala maqnay bisha Ramadaan bis ayaan joogaa yaa maqnoo yiri marka hore taasaa qalad ah dambi kale loo haysto gabadhan miskiinta ah sanadkii hal mar u timaadid ay laftigeeda dhibkeeda leedahay
ayadoo taas lagugu dul qaadanaya haddana soon waxaad leedahay oo ku marmarsiyoonaysaa marka xaaladda horta ma jirto insha allahu tacaala qofka musaafirka ah teeda kale waxaa dhici karta meeshan hadda uu yimidba soo caruurtiisa ma joogaan gurigiisa inta waayaba waa deegaan meesha la rabo inuu ku soomo oo la rabo inuu isku ilaaliyo oo la rabo inuu xaaskii ilmihii waxoogaa la joogo waa meeshaanba meeshuu ka yimid waxa ku yahay walba ku yahay marka arrintaas waa arrin qalad ah ma loo baahna meeshaan aad timid waad ku soomaysaa gabadhan aan u danayna aad leedahayna hadal wax ka jir ma jirto marka raashin ma bixinaysid laakiin soonkaad soomaysaa insha allah waa ku qasban yahay waay sheekh su'aalo badan waxaa jira dadka dhexdooda markaad fiiriso ramadaanta aad hadalhayn uga dhalato waxaa ka mid ah dad badan oo meel isugu yimaadaan waan arkay oo arrintaas isweydiinay qofka mu'adinka ah marka salaada maqrib uu doonayo inuu aadaamo oo ah salaadii lagu afuraayay aadaanka dadku waxay leeyihiin imaamka aadaanka ka hor ayuu soo afuraa iyo aadaanka ka hor ma afuray aadaanka kadib ayuu afuraa oo inta aqinka aan la gaarin ayuu afuraa marka qofka mu'adinka ah afuraadiisa maadaama xilligeen uu taagan yahay ma hormarsanaya mise waa aadaanka kadib imaamka horta saan u badinayo ana xataa imaam baan ahaan jiray wuxuu afuraa imaamka laftiisa waxaa xukuma mu'adinka marka ma afurayaa intuusan adimin mase waa adimayaa intuusan afurin waxaa wanaagsan mu'adinka markuu afuro timirtii inuu cuno waayo wax meesha u dhaxeeya maba jiraba afka markuu gashto allahu akbar uu leeyahay marka xilligii wuu galay wuu istaagay sida u fiican inuu mu'adinka afuro xabad timir ka badan ma cuni karaba ilaa saddex hadduu cuno xataa wax dhibaata ma laha ilaa afarkan hadda oo mu'adinka laga sugayo sambuuso cunaa mishaari wacabaahi waa inuu timirtaa cuno ummadda uu adimo kadibna ayaguna afuraan insha allah waaya sheekh xasan assalaamu calaykum waan ku salaamay salaan kadib dabcan waa wiil dhalinyar ah wuxuu leeyahay sheekh nairobi ayaan deganahay aad waxaan u jeclahay in taqwada ilaahay aan ku dadaalo nin dhallinyaraan ahay laakiin mararka qaar waxbaa niyadda iiga soo dhaca waxaana isoo dhaafa shahwadii aniga oo ku talagal aysan iga ahayn waana soomanahay marka sheekh ramadaankii wax muu dhimayaa arrintaas marna waa u dhimaysaa marna ma u dhimayso qofka haddii jiro noocaas uu qabo wax tankiisa ka badan iska yimaadaan waxaa jira gabdhaha laftigooda waxay leeyihiin dhiig xadad daa'im ah oo iska socda waa ku soomayaan waa ku tukanayaan raggooda way la kulmi karaan ninkan haddii taaqadiisa ay ka baxsan tahay wax ma loo haysto way soo dhaafaan laakiin fikir uu galay asaga ugu talagalay waxbuu soo xasuustay dhacdo hore u dhacday oo kale gabar meesha maraysa iyo qaab buu isaga sheekeeyey way ka timid soonkiisa waxuu dhimaa waa furmaya soonka noocaas uu jabaya ama wixii noocaas oo kale ah awood asaga oo waxyaabo uu ku talagalay ay markaa ku yimaadaan hal maraa loo dhaafayaa soonkiisana uu iska jirayaa uu wanaagsanaana waa marka wax asaga awooddiisa ka baxsan ay tahay insha allah dabcan su-aashaana sheekh waxay nooga timaaday gabar kale oo soomaaliyeed waxay leedahay sheekh waxaan ahay dhaktarad waxaan ka shaqeeyaa cisbitaal waxay leedahay qaybta aan ka shaqeeya ragga ayaa ku badan oo lagu daaweeya tusaale ahaan waxay tiri waxaa ku badan dadka kaadida ay ku xirantay oo kaadida laga soo saarayo qofka waxaa qasab uga ah in xubintiisa taranka aad aragto maadaama aad dabiibayso anigana sacim ayaan ahay marka shaqadeedana way tahay arrintaas soonkayga wax muu dhimaysaa aad iyo aad waxbay ugu dhimaysaa horta kow waxaan kugula talin lahaa inaad meesha ka bedelataba oo meel oo soonna ku ilaalsamaanaynin yaa habeenkii laga yaabay qof waxaan dhan a arkaya habeenkii markay siixaad maxay noqon kartaa wax walba waa ka filanaysaa mogtahay mar qaarkood laga yaabay baydo gacanta ula jirtay run inay u malayso riyana ay tahay kor u soo goodi uu ku soo celiyo marka insha allah horta gabadhan waxaan kula talin lahaa soonkeyga wax muu dhima waxaa iga daranba in shaqadan bataatanba aad ka baxdo iska dhaafto ilaahay ka risqi badan teeda kale diinta islaamka waxay qabtaa nin marka la daaweynayo inuu nin daaweeyo naag marka la daaweynayo inay naag daaweyso haddii ninkii la waayo nin daaweeya xataa waxaa la leeyahay nin waxaa loo raadinayaa gaal ah intii gabadha muslimadda ninkaasaa uga awliyeysan oo usoo amtaana uga horaysa saasay u kala socsoodaan gabar muslimad ah waa in meesha uu taagan yahay maxramkeedii waxaas dhanaa loo shardiyaa
marka gabadhan soonkaaga waxaa iiga daran baan iiga muhiimsan shaqadana iiga walwal badane taa bal soo xali gadaal nooga soo noqo insha allah nacam جزاكم الله خيرا الشيخ حسن qofkan kale waa wiil dhalinyaro asagana wuxuu leeyahay sheekh bal ka waran bisha barakaysan ee ramadaan dadaa waxay u tahay bil nasiino bil hurdo masaajidka markaad tagto waa la wada jiifaa xaafadihii markaad tagto dadaa jiifa oo 11 saac 12 saac markay dhowdahay soo kaca dadkaas iyo soonkooda bal ka waran bismillahi raxmaan raxiim juhdiga iyo dadaalka la is amray iyo bisha ramadaan xigmadda ku jirta ma aha saas waa inuu jiifkuna yaraadaa soo jeedkuna bataa haddii la jiifanayo muddo badan waa soo jiifanay waqti badan baa la soo jiifay bishaan marka nebiga sallallahu alayhi wasallam aad buu dadaali jiray khaasatan bisha tobanka dan marka la gaaro maxay xadiisku tilmaamayaan shadd al-mi'zar xadiistiisa wuu dhuuqsan jiray nebiga ana dumarka baa ka fogaan jiray hurdada waa ka fogaan jiray wax kasta xataa meel inta uu galo yuu kaliya isaga qalweyn jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka jiifka faraha badan bisha ramadaan dhihi mayna dadkan xaraam bay ku dhaceen iyo dembi haddii uu soomo salaadii waajibkana uu guto inta ka soo hartayna uu jiifto wuxuu dhumiyey fursad soonkaaga waa u jiraa xasanaadkiisa ilaah intuu siiyo subxaanahu wa tacaala waa helayaa laakiin booskii loogu talagalay in la dadaalo ziyaado la korarsado ila marka kamid waxaa soo baxda iyadoo la shaqeynaya shaqo dheeraada sooma qof kasta waa isqoraa $1,000 la qaadanaya ninkii intaas dheeraada qof kasta waa gela laakiin tan maxaa diiday markuu qofku u jiifto tan waxaa la bixiyaa guna la bixiyaa ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa bishaan dadaalkeeda inay aad u fiican tahay dadkuna ay aad u dadaalaan wayaa baaqiya shari aqsir wayaa baaqiya alkhayr aqbil kii khayrka samey jiray ama ka yaraa soo degdeg kaale ciyuu samee sharoorana joogsa la dhihi jiray marka dadka noocaas inay iska dhaafaan kana faa'iidaystaan waqtigooda inta ramadaanka lagu jiro جزاكم الله خيرا الشيخ حسن إبراهيم عيسى qof kale ayaa su'aal muhiim ah soo weydiiyay dabcan waa haweenaysan aan arkay sheekh waxay tiri waxaan maqalnaa marka lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ahadiis badan lagu sheegay in janooyinka irdaha loo furay naartana la xiray qofkii dhintay bisha barakaysan ee ramadaan oo khayr badan aan lagu ogeyn ilaahay dabcan isaga naxariis badan waana ciqaab uu ku leeyahay qofkaasi inta badan dadku waxay u nisbeeyaan oo ay dhahaan bil khayr badan ayuu dhintay ninkan waa ahlu janna shaki ma laha marka sheekh ma la dhihi karaa qofkii dhintay bisha barakaysan ee ramadaan dhexdeeda ama bilowgeeda ama dhammaadkeeda waa qof ahlu janna ah oo cid su'aal la weydiinaysa ma laha jannada ayaa toos loo geenaya bismillahi raxmaani raxiim horta su'aalaha waa la isweydiinayaa waayo waa laydinku imtixaamaya qubuurtii nabiga nabiga sallallahu alayhi wasallam sida fitnat masiixu dajaal fitnadiisa oo kale ama wax la mid ah marka waa la dhihi karaa ilaahay idinkii qofkan in loo niyeysto oo la dhaho qofkan bacdamaa bir ramadaan ku dhintay waxaa loo rajaynayaa loogu rajaynaya inuu ahlu janno yahay sababtu waxay tahay albaabaha jannada xikmada loo ballaqayba ka mid tahayba naartii way xiran tahayba waa la xiray ninka takhsiir sameynaya camalkiisa yaraa ama gaabis ku jiray laakiin qof shirki aan ku jirin ah oo tawxiid ah ku socday camalkiisa haba iska yaraado insha allah ilaahay inuu geliya loogu rajo badan yahay insha allah laakiin gaal baa dhintay bisha ramadaan maxaan dhihi karnaa haddaan ku weydiiyo maslaxa jannada mala waa iska cadda allahu akbar marka waxaa leedahay waa la dhihi karaa insha allah weliba iyadoo la jisminin ilaahay awooddiisa wax kastoo ay keentaa in la yidhaahdo waxaa loogu rajo badan yahay waxaa ilaahay looga rajaynayaa waxaa dabcan su'aaltaas u dhowaa meeshaan ku hayaa sheekh xasan dabcan wiil dhallinyaraa soo qoray cabdi lagu magacaabo wuxuu leeyahay sheekh waxaan maqlay in naarta u badan yihiin culummada iyo dumarka culummada waxaan aragnaa in wanaag ay samaynayaan ilaahay ay ka cabsanayaan dadka ay wacyigelinayaan haddana sheekh maxaa isbedelay oo keenay in la yidhaahdo culummadii soomaaliyeed ama culummada meel walba ay joogaan qaar badan oo ka mid ah maalinka yowmal aakhiro naarta ayay geli doonaan su-aashaas ayaan rabaa sheekha inuu iiga jawaabo horta dumarka xadiis qaas oo sheegayaa jira nabi wuxuu yidhi waxaan soo arkay naarta waxaan arkay inta badan inay ugu badan yihiin ahlu naarka ay yihiin oo dumarka xadiis noocaas oo saas ah oo dhahay waxay u badan yihiin naarta waxaan soo arkay culimada horta ma jirto mana arkin laakiin xadiis waxaa jira bacdama culimo keligeed aysan ahayn oo nebigu ku yidhi dadka lagu furaayo naarta
oo lagu bilaabayo kuwa lagu horinaayo waa 3 مثل علماء iska dhahnaba bacdama xadiisku qaar uu leeyahay qof qaari ah quraankii uu bartay si fiican buu akhriyay uu tajwiidiyay qaari quraanka akhriyay iyo nin sadaqa badan iyo nin mujaahid oo jihaad ku dhintay waa 3da lagu furaayo cadaabka lagu horinaayo sababta keentayna waxa waa ikhlaas ah qalbiyan kama ahayn ilaahay dartii qalbiyan kama ahayn mukhlisiina lahu diin baa ka maqnayd waxa uu sameeyay qof aad arkaysa quraan baranay wuxuu u baranaa inuu dugsi furto oo lacag ku helo qasad kale ma la janno ku hel ilaahay raalaha kaaga noqdo ma aha waxay ka tahay bari meelaha zabti in laga waco alla bariga meelaha ka jiray lacag ka kasbiyo ninkan sadaqada bixinayo wuxuu rabaa in la yiraahdo hebel fiiriya saqi waa gacan furan yahay qasadkii ujeedada qalbigiisa ku jirta asaas ah ninkan dagaalka ku dhintay ee shahiidka ah wuxuu u dagaalamay in la yiraahdo geesana in oo qubuuraha qaranka lagu aaso in astaanta muusikada wadanka loo tumo calanka kor laga saaro qofka saasoo kale ah ayaa kelifaysa marka ninka sheekha ah ama saqaariga quraanka yaqaana in naarta uu galo sababta marka waxay noqotay ikhlaas la'aan taas keenaysa sheekh su'aashan adeeg ugu saabsan tahay cabdi muusneel laha ayaan soo weydiiyay wuxuu leeyahay sheekh xasan muxuusan kartaa soonkii kugu horeeyay ee adoo yar aad soontay iyo marxaladii aad la kulantay horta niyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu mahdinaya ilaahay uu mahdinaya subxaanahu wa ta'ala anigoo yar xataa soonka aan gaarin waa soomi jiray biyaha markay ciyaalku xadaan maxad jiray cuntada markay soo dhuuntaana lama dhoomin jirin marka si toos oo oodi jiray walaal ilaa marka kamid ah mudoobaan jireen haddana waa dhamaysan jiray soonka ilaahay wuxuu igu gargaaray subxaanahu wa ta'ala ciyaalku way ciyaari jireen kubadda iyo banooniga iyo ma jecleen ani ma ciyaari jirin marka gobol kamid ah dhici jirtay ciyaalka marka dadka ciyaaraya marka banooniga ka soo fakado soo baxo mid baa ka soo daba orday sama kuwa kale oo soo socdaan oo suga marka inay u soo celiyaan banooniga ani ma u soo celi jirin xataa maalin soo socda banooniga soo fakaday ama kubad markuu igu soo dhawaado lugtada ku dhaw lugta kor uga qaatay waa kale way hoos baxay banooniga wiilkii ka soo daba orday anuu isugaayay inaan u soo celiyo reer baadiyaha biire marka xaaladaas way iska jireen dumarku gabdhaho kale ragga wiilasha marka la yaryaryahay waa la isla ciyaari jiray marka inta badan waa iska ilaalin jiray waxay u naxtin badan haddaan kaaga sheekeeyo inaan kuu sheega hadda kahorna ma ogi dukaan anagoo ku jirna gabadhaa soo gashay marka xaafadeed degan tahay gabdhaha xaafadda waa iska foodayn jireen aqoon muslimiinna wana dhihi jireen waxaan aad u baran jirnay gabdhahana waa iska ilaalin jireen marka gacanta ayaa waxay damacday xoog inay ku salaanto waaba qabatayba darbaxsho la yaqaano inta ku kala jeeday hadda daan arki lahaa waa ka cafis dalban lahaa ma loo baahnayn waa iska adkaa waxoogaa dhalinyarnimo jirtay seef labood baa la dhihi jiray wax lamid ah marka walaala ii dhaafay in la wacdiya haddii la wacdin lahaa xataa inay xijaab qaadan lahayd waa suuragal marka saasay ahayd marka soomka sanad hebel ma dhihi karo laakiin aada u yaraa ma qaangaarin waa soomi jiray insha allah sheekh xasan jazakumullahu khayran qofkan kale su'aashana soo weydiinaya waa Faatima gabar magaceeda ku soo koobtay waxay leedahay qurba joog ayaan ahay sheekh waxay leedahay meesha aniga aan joogo maanta marka la soomo 13 saacadood 12 saacadood bari 15 saac inay noqoto ayaa laga yaabaa daawooyin ayaa dhaqaatiir ii soo qoray oo leegu dhahay xilligaas cab xilligiina waxaa laga yaabaa in ramadaanta weli ay socoto oo afurkii aan la gaarin marka maadaama khatar aan galay nolosheeda caafimaadkeeda waxay u dhimayso arintaas caafimaadka dartiis iska furi karaa soonka qofka noocan oo kale iska afur ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala wa in kuntum mardaa haddiiba khatar aad gelaysid way ka sii daran tahay haddaad xanuunsan tahayn ama safar aad tihiin cuna oo caba fa ciddatun min ayaamin ukhra marka taa ilaahay kuu fasaxa insha allahu tacaala nafta in la cadaabana ma aha la dhibo soomaalida waxay caado u leeyihiin ayagoo xanuunsan wuxuu ku leeyahay sookayga waa wadanaa dhakhtar isbitaal u jiifaa kumaan isoo wacay isbitaal u jiifaa cirbadaa ku socoto sheekh ma soomi karta war dhibkaanaa ku jirtaa ilaahay dadka cudurdaarka may waxaan diidaya inay hadhow soo gudo
aad bay u soo jecel yihiin Soomaalida marka waa iska furi kartaa insha Allah way Sheekh Xasan jazakumullahu khayran wa Xaaji Maxamuud nin magaciisa ku soo koobay wuxuu leeyahay waxaan ahay darawal waxaan joogaa Soomaaliya Muqdisho iyo Baydhabo ayaan ka dhex shaqeeyaa sheekh waxa laga yaabaa inuu leeyahay sidoo su'aashu u soo qoray maanta in Muqdisho aan joogo isla caawana aan guureeyo oo Baydhabo aan aado biri markaan Baydhabo galo galabkii inaan soo baxo oo Muqdisho haddana aan soo aado nasiina badan aanan helin sheekh soonkayga haddii aan soomo ma ii jiraa haddii aan iska dhaafasay ilaahay dadka uu fasaxay ee musaafiriinta aan ku jiraa bismillaahir rahmaanir rahiim musaafiriinta waad ku jirtaa dadka saameelaha kala gooshaya laba xuduud oo kale laba waxaas u soconaya baabuuray taksiilayaal safar kale wax kala galaya kulli safar magaciisa la siiyay وإن كنتم مرضى أو على سفر لما كان قادين marka inta musaafirka ku jirtid oo dhan waa lagu ogol yahay safarka jidkaad ku jirto inaad afurto oo Ilaahay uu ku baneeyay dib damban aad ka soo qadayso marka safarka aad u ka dhamaado kaas waa ogol hadii aad soo maadidna shardi waxa loo xiraa qofka inuu soonku ku dhibaatoonaynin hadduu soonku ku dhibaatoonayo inuu afuro fadli badan laakiin waa lagu soomi karaa safarka gudihiisa qofka asagoo safar way ka sugnaatay nabiga cabaar buu soomay markuu fatxi Maka la aadayay casirkii oo kale ayuu furay soonkii waxa dadka soonku way ku dhibtoodeen adeeg ku sugayaan ganuun biyo iyo keeno dhamarka uu isku qabtay nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkii oo dhan wada arkaya dadka markaas ay afureen marka qaybna bacdama uu ku soomay nabiga waxa laga qaadanaa in la soomi karo qayb hadna ka afurayna in gadaal xataa laga afuri karo laakiin sida ugu fiican ruqsada Ilaahay in la qaato ayaa aad iyo fadli badan oo la afuro Sheekh Xasan jazakumullahu khayran su'aalaha aad u badan yihiin qof kale ayaa wuxuu soo weydiinayaa su'aal ku saabsan Sheekh Xasan iyo maslax waadin salaamay uu leeyahay salaam kadib sheekh waxaan leeyahay balwad gaar ahaan sigaarka iyo qaadka ayaan cunaa bisha Ramadaan Ilaahay fadligay qaadka waan joojiyaa laakiin sigaarka ma joojin karo marka aadaanka uu dhaco dadka markay timirta afka gelinayaan aniga xaraarada ayaan iska gooyaa xabad sigaar ayaan ku dhuftaa markuu madaxa ii dago ayaan afraad u fariistaa maanta waan soo soomay quraan ayaan aqristay salaadihii jamiica ayaan ku tukaday qaar kaligii ayaan tukaday sheekh soonkaygu ii jira bismillaahir rahmaanir rahiim soonka jiritaankiisa shuruudiisa hadii la yimaado waa jira horta ko intaana kaaga jawaab Ilaahay kaaga baryeena in labadaba Ilaahay ka madoobeeyo labadaba ay noqdaan inay waa laba waxyaabood oo ugu xun nin hadda soona oo xaraara haysa oo indhaha isku haaya oo Allah akbar marka la umada meeshii nabiga timir cun oo ka yiri sigaar cunaaya waa sigaar cabaaya dibkiisa leedahay marka intii ku ibtireysan dhanba Ilaahay ha ka madoobeeyo saas Ilaahay ka baryana insha Allah taala mid xigta horta soonka waa ku gooni amal fiican oo aad qabatay waaye faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara oo arkaya Ilaahay ka dayici maayo ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تنوى أذكيسا مركا صونك أقبلكيس بعدما إلهي أوليه حدنا وحرجيني صونك وصون نظيف ضوءها إن ربك أقبله تنى إلهي كمذوبيه كان عفيه تان إلهي بك رجيني إن شاء الله لكن صونك إن شاء الله وفي عيه سؤال شغل دنبيسا يا شيخ حسن سو غارني قف كان wuxuu leeyahay sheekh nin iskaabul ayaan ahay xaafad ayaan deganahay Nairobi waa taqaanaa flights ayaa la degaa gabdha ayaa la degan gabar garooba ayaa waxa inta Ramadaanka aan la gelin ay u weydiisay lacag aan afurka iyagoo ku darsado si aan wada afurno anigu waxaan ku dhahay shaqo fiican ma haysto magaalada ayaan afur u raadsanayaa waxay ugu tiri gabadhii afurka ana ku sameeynaa inta lagu guda jiro bisha barkeysan ee Ramadaan lacag si ururso iyana balan qaad inaad guursanayso Ramadaanta kadib aniga diyaar u yahay Sheekh Xasan inaan gabadhan guursado laakiin daruuf ayaa i haysa afurkana waan ka helaa marka hadhow hadii aan ku boodo soonkay wax may u dhimaysaa walaal bismillaahir rahmaanir rahiim saan soo tilmaanay horta qofkii wanaag sameystana wanaagiis waa leeyahay qofkii shar sameystana waa leeyahay marka xaalad saas haday tahay waxaan hadda soo sameysay inta hadda oo soonku uu jiray maanta waa 15 sano 15 kan maalmood gabadha hadaadan guursanaynin runta u sheegaysaa iyada wuxuu leeyahay ana ku siinaa laakiin ii balan qaad bis ilaa waan u balan qaad balan qaadka haduu been yahay in balan qaadka laftigiisa
waa inuu run ahaado. Hadhow haddii duruufo kale hadda alla iska timaado in wax dhexgalaan waa gooni, laakiin waa inay run ka ahaato qofka. Ballanqaadkaaba ka daranba. Marka ballanqaadka aad ballan qaadayso waa inaad haddaadan guursayn waa inaad joojisaa oo aadan ballan qaadin. Teeda kale gabadhan garoobta aad sheegayso, haddii gabadhan garoobta aad sheegayso adiga iyo iida keligeed haddaatiin afarka, saas may horta labadooda meesha waa la wada degan yahay, lacagaa la isku darsanaya, ana lacagta ma haysto marka anaa kaa dhibaya, anaa kaa bixinayo, laakiin iyo ballanqaad baxdo ramadaan inaan ku guursanaysa maya ma sheegi kartid. soonkaaga inuu wax u dhimo waa dhici kartaa. waayo qofkaan ka tegin ee hadal been ah buu dhahay nebiga, man lam yadac qawla zuur, iyo hadal been ah iyo camalfalkiisa ilaahay dan iyo xaaja kama laha inuu sharaabkiisa iyo tacaamkiisa ka tago. marka gabadha jooji. haddii meel aad ka afurto aad doonaysidna masaajidka aan joogo igu imo meesha afur fiican kaa siira insha Allah tacaala. masaajidka laga bixiyo. fariintaad ugu dambaysa ee aad u dirayso dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku daawanaysa ama ku dhagaysanaysa Sheekh Xasan Ibraahim Ciise oo si weyn ku yaqaana in muddo ah hadiisyadaadii iyo muxaadarooyinkaagii dhagaysanaya adigoo taxliilinaya, fariintaad u gudbinayso bisha barakaysan Ramadaan ku saabsan. bismillaahi raxmaani raxiim. saad la socotaan darrad waxaan soo dhawaynaynay bisha barakaysan ee Ramadaan. beri wixii ka bilowdaa dhanka dhammaadka uu aadaa. Ramadaan hadda wixii ka dambaysa waa raranaya, waa xirxiranaya, gabagabo ku sii socdaa. mar dhow waxaan u diyaargaroobaynaa saan ku sagootin lahayn. bacdima saas ay tahay, ramadaanku markuu xirxiranayana wuxuu horey u qaadayaa intii ilaahay ka cabsatay, si fiican u soontay, qiyaamkii iyo dadaalkii la timid ajirkooda dhan wuu qaadaya. sidoo kale xasaraadka iyo nadaamada iyo qoomamada dadkii aan soomin, xumaan galay, soonkoodii xumeeyna waa qaadayaa. intaba ilaahay buu ku sallay subxaanahu wa tacaala. marka ramadaanow maxaan naga wadaa annaga? waa su-aal. fariin noocee naga qaadaysa? fariin noocee inta naga qaadad ilaahay noogu geyn doontaa. ilaah waxaan ka rajaynaynaa dhammaan dadka camalka fiican laga qaaday inuu ilaahay noogu daro. inta dhimayn aad loo dadaalaan dhihi lahaa dadka guud ahaan. wabilaahi towfiiq. aad buu umahadsan yahay Sheekh Xasan Ibraahim Ciise ayuu ahaa oo su'aalaha ramadaanka inooga jawaabayay daawadayaal. guud ahaana barnaamijkan intaas ayaan kusoo koobaynaa. barnaamijkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo, nooli kulantay, ammaano Allah. wixii su'aalo aad u hayso sheekana qaybta kommentiga ayaad inoogu reebi kartaa. mahadsanideen.